waxaana marka ugu dambaysa si rasmi ah xafladan ama xaafadan Amal Real Estate ama Amal Village u furi doona hadduu alla qadaro madaxweynaha Puntland. waxaad ila soo dhaweysaan madaxa ugu sareeya shirkadda Amal Real Estate mudane Bila Cabdillaahi Warsame waxa uuna halkan inooga soo jeedin doona haddii alla idmo kelmadda soo dhaweynta xafladan qiimaha iyo qaayaha. raxmatullaahi wa barakaatuh. salaan ka bacdi runtii hadallada mashruucan aan ka oran lahaa iguma filna waqtigan inaan halkan ka hadlo laakiin hadalkaygu wuxuu ku salaysan yahay oo kali ah mahadcelin aan idin mahadcelinayno khaas ahaan madaxweynaha islaamka iyo golayaasha xukuumadda sida wanaagsan iyo marti sharaftaba sida wanaagsan ee aad noo aqbasheen noogala soo qayb gasheen mashruucan dhiirigelinta u ah bulshadeenna tusaalaha u ah mujtamaceenna horumarkeenna astaanta u ah inaad nagala soo qayb gashaan ayaan hadalkaygu ku saabsanaa inaan idinkaga mahadceliyo waadna sharafteen waad mahadsantihiin madaxweyne waad mahadsan tahay waqtiga qaaliga ah adoo aad u mashquulsan inaad na siisid aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxaan isleeyahay waad istaahishaa oo waxa weeye ganacsadahayagii aqoon-yahayagii madaxweynahayagii mar haddaad tahay waxa weeye waddanka horumarkiisana inaad nagu hoggaamisid waa midda aan niyadda ku hayno aan rajaynayno ilaahayna aan ka rajaynayno inuu aqbalo intaa ka bacdi mashruuca xaafadda Amal Village waa mashruuc ka kooban 1,100 guri oo wata dhammaan facilitieskiisii runtii qaabka loo balangareeyayna uu yahay qaab casri ah oo xaafad walba xaafaddu ay u qaybsan tahay qayb walbana ay leedahay adeegeedii oo kaamila masaajidkii waxyaabihii dukaamadiisiga ahaa farmashigeedii station police waan ku talagalnay iskuuladii bay leedahay oo intermediate primary intermediate secondary aan ugu talagalnay ilaa college level aan ka fakarayno oo specialized areaooyin khaas ah aan ugu talagaleyno inaan aqoonta aan dhinaca college aan ka galno taasoo aan ugu talagalnay dhalinyarada dibadda ka imaanaysa ee diasporada maadaama diasporadeenu aad waddanka ugu soo noqonayso inaan ma aragtay aan soo dhaweyno aan u helno waxbarashadii ay ku haysteen wadamadoodii dadka waddanka ku nool ee aan diasporada ahaynna ay kula qalin daartaan oo bahalka la yiraahdo ay la wadaagaan sidaasoo iyadana laftigeeda affordable-ka aanan ka tegayno macquul aan ka dhigayno qiimayaasha aanan qaaliyeynayn internationalna aan ka dhigayno intaa ka bacdi mashruucan runtii isagana waxaan xusid mudan xogta mashruuca oo xoog leh waxaa bixin doona tiimamka iyaga dambe oo marketingka iyo guryaha noocyadooda iyo taybabka ay ka kooban yihiin iyo infrastructure-ka oo muhiimadda noogu weyn maanta inaan idinla wadaagno madaxweynaha iyo golayaasha xukuumadda iyo bulshada inteeda kale aan rabno inaan la wadaagno si hareeraha looga istaago oo mashruucu gacmo wada jir bay wax ku gooyaan baa la yiri gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka aan rabno anaga kaliya aanan ku filnayn dawladda aan ka rabno support fara badan iyo maaragtay garab istaag fara badan haddii ay madaxweynaha tahay iyo hadday golaha xukuumadda tahay intaba aan rabno hiil aan uga baahannahay islaamka waxyaabahan u casibno ay ka mid tahay in aad loogu dadaalo nabadgelyada oo magaalada innaga reer Puntland khaasatan Garowe waxa inoo iibsami kara productiga u horeeya aan iibsan karno waa iib waxa weeye oo iibkeena iyo nolosheena ay kor ugu kici karto oo dadka Soomaaliyeed aan soo jiidan karno waa nabadgelyada marka nuur iyo naaleeyo maanta looma kala maqnee nabadii in aad iyo aad awood la isku geeyo oo aynu soo jiidano bulshadeena diasporada ah oo dibadaha inaga jira oo lacagteena iyo hantideeniba ula xabawaray gobollo kale iyo wadamo kale ee soo jiidano Soomaalida kale waxaan idinku bishaareynaa xaafadda dadka iibsaday inay ku jiraan reer Koonfureed reer Muqdisho ay ku jiraan reer Baydhabo ay ku jiraan reer Somaliland ay ku jiraan cid walba aan loo kala maqnayn Arab iyo Cajaba ay iskugu jirto Soomaalidu marka taasna si fiican baan idin la wadaagi doonaa mustaqbalka runtii marka waxaan isleenahay xaafad modern ah oo casri ah oo Soomaalida ku midayn doonta deegaanka iyo wada jooga iyo wada noolaanshaha ayaan rajaynaynaa waxaan uga bixi lahaa ku noolow dalkaaga la noolow dunida kale waa shicaarka mashruucan waana mahadsantihiin waxaan rabaa inaan haddana soo dhaweeyo idinkuna aad ila soo dhaweysaan sidaan ula soconaba bangiga iyo shirkadda ama gruupka
amal group waxay ka mid tahay shirkadaha ama bangiyada wadaniga ah ee dalku leeyahay ee dalka maalgeliyay ee dad badan ka faa'iideen shaqaale fara badan ay ka shaqeeyaan oo haddii aan iyagu joogeen malaha dibadda dadkooda tahriibaadi lahaayeen qoysaskoodana aan wadada soo galeen haddaba waxqabadka guud ee amal group baan rabaa in uu nala wadaago madaxa ugu sarreeya amal bank ugaas cismaan xasan idinkuna waxaan rabaa inaad la soo dhaweysaan bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad u sugnaatay mahad dhammaanteed inoo suurtageliyey munaasabadan qiimaha badan ee aynu ku daahfurayno xaafadda amal village iyo waddada xaafadda magaalada isku xirta sharaf bay noo tahay haddaan nahay amal group gaar ahaan amal bank oo mashruucan maalgelinaya iyo amal real estate oo mashruuca dhisaysa inaan maanta halkaan u joogno xafladda daahfurka xaafaddan cusub ee casriga amal village iyo waddada weyn ee isku xirta magaalada iyo xaafadda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha marti-sharafta kale ee nagu sharfay ka soo qaybgalka munaasabadan waxaana noo tahay runtii dhiirigelin iyo mudnaan gaar ah ayay noo tahay waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka iyo shaqaalaha amal group guud ahaan gaar ahaan maamulka iyo shaqaalaha amal real estate oo hawshan baaxadda gacanta ku haya sidoo kalena xafladdan inoo soo agaasimay mashruuca amal village runtii waqti dheer buu soo qaatay waxa waqtiga dheereeyana waa mashruuca iyo weynadiisa iyo culayskiisa oo fakar badan uu galay iyo hadaafta laga leeyahay maraaxil kala duwan buu soo maray ay ka mid tahay gadistii dhulka in la gado ay ku xigtay maantana ay dhowdahay waqtiga mashruuca la degi guriga xaafadda la degi lahaa waxa la soo maray maraaxishii ka horeysay intaan guryaha la bilaabin in biyihii la soo saaro waxa la sameeyay suuqyadii oo hadda dhammaystiran yihiin waxa la sameeyay masaajidkii ayaa diyaara waxa diyaara iskuulkii isaguna dhawaan muxuu ahaa isaguna dhammaystirmi doona runtii ma sahlana mashruuc sidaan oo kale oo xaafad cusub ah in la bilaabo waxyaabihii noogu adkaa waxaa ka mid ahaa naqshadda oo waqti iyo hanti badan ay gashay waqti dheer qaadatay waa xaafad dhan oo la dhisayo oo garow oo kala ah waad garan karaysaa naqshadeedu siday noqonayso guud ahaan sida la sheegay xaafadda waxaa laga dhisayaa 1,100 guri waxaan aaminsanahay inaysan ku filnayn oo ka badan loo baahan doono laakiin hadda qorshaha miiska saaran waa 1,100 guri sida la sheegay waxa ilaa hadda dhammaystirmay ama gacanta lagu hayaa 63 guri oo qaybtood hadda madaxweynuhu soo arkay oo diyaar yihiin inta kana dhawaan la gabagabayn doono waxaan qorsheynaynaa haddii ilaahay idmo 337 guri oo u dhiganta 30% guriyihii la dhisi lahaa in la dhammaystiro 2025 haddii ilaahay idmo in la dhammaystiro waxyaabaha kale oo xusid badan waxaa ka mid ah guryaha la dhisay oo guryo aad u kooban marka loo barbardhigo baahida jirta marka loo eego guryo aad u kooban waxa kale oo xusid badan in qiimaha dhulka uu aad iyo aad u hooseeyo oo hadda waxa dadka ugu horeeya oo sanadkan soo socda horaantiisa iyo dadka hore qiimaha lagu siiyay waa asalkii dhulka uu ku fadhiyay laakiin wixii 2025 toddobaad loo gaaro ama lixaad ba inuu qiimuhu kor u kici doono sidaa darteed waxaan leenahay fursadda laga faa'iideysto maadaama guriyahana ay yar yihiin qiimuhuna uu kici doono waxyaabaha xusidda mudan waxaa ka mid ah magaalooyinka garow la midka ah sida muqdisho iyo haddaad eegto hargeysa qiimayaasha halkaan aan ku hayno 3 laab ama 2 laab bay ka badan yihiin marka iyaduna waa fursad kale laakiin waa laga yaabaa dadkan inay u arkaan qiimihii qaali uu yahay inay u arkaan marka la eego mashruucan marka muddada mashruucan socday kharashka ku baxay iyo hawlaha baxadda leh dhiman runtii ma filayo in amal bank ama amal group wax faa'iido ka helayo way waqti dheerna uu socdaa kharash badan oo ku baxaya laakiin runtii waxa waxtar noo ah oo anaga faa'iido noogu jirtaa in dadkeena qurbaha jiray ay deegaanada ay ku noolaayeen lamid ay ka helaan haday noqoto waxbarashadii iyo maaragtay caafimaadkii iyo facilitieska kale waad ogtiin qurbaha dhibaatada ka jirta meelahan hadda qurbaan nacaska ku dhahaan oo dhow iyo kii shishaba dhibta ka jirta gaar ahaan caruurta ay dhibta ka jirta marka iyagana wuxuu noqon doonaa meel ay runtii ku soo hirtaan oo ay soo degaan waliba iskuuladu ay noqon doonaan iskuulo standard ah meelaha ay deganaayeen ama ay joogeen saan ilmihi waxbarashada kala goyn waxa kale oo mashruucan fursad u yahay dadka dalka ka baxaya marmarsiiyahoodu yahay iskuulkii baa liita ama caafimaadkii baa liita ama waxbarashada baa hooseysa
iyadana in iskuulla maaragtay meelaha ay u socdaan haddaanay ka fiicnayn in loo keeno wuxuu kaloo mashruucan fursad u yahay dadka aan guryaha lahayn gaar ahaan shaqaalaha oo ay waqti dheer ama ku qaadato ama ku adkaato inay guri yeeshaan oo kirooyinka la daala dhacaya inaanu ku siino guryihii waqti dheer oo ay lacagta isaga bixiyaan oo isaga fududeeyaan oo ay guryo ku helaan insha Allah sidaad la socotaan magaaladu waxay inta badan u socotay galbeedka iyo waqooyiga laakiin waqtiga iyo hantida mashruucan la geliyay wuxuu sababay in magaalada koonfurtan u soo fido sidaa darteed dad badan baa dhulkoodii qiimo weyn ugu kordhay oo maanta hantiilayaal ah kuwa dhulkii gatay wax badan dhulka u gooyay guryo badanna hadda way dhismayaan xaafadda dhankan way soo kacday marka sheekada ahayd xaggaas magaaladu aadaysa waxa madaayna hadda iska soo ururtay annaga laftirkay marka mashruuca wanday dadku aad bay noo canaanayeen walaal halka magaaladu aadmaysa maxaa ka doonteen xaggaas magaalada u socoto oo galbeedka ma aadaan marka iyadana inaan magaaladii culayska laga qaaday oo la kala fududeeyay ayay fursad weyn noo tahay magaaladana waxaan rajaynaynaa xaafadda inay ku soo kordhiso maciishadina wax ka bedesho sicir bararka magaalada ka jiray weligeed Garowe ay asalka ku ahayd inay wax ka bedesho insha Allah maadaama dadkii guryo badan ay helayaan mashruucu soo kordhiyay runtii oo aad iyo aad wax loogu faana ah shaqo abuur badan ayuu soo kordhiyay dad badan baa shaqo ka helay oo maanta noloshooda ay ku tirsan tahay waxyaabaha kale soo kordhiyay waxa kamid ah shirkadihii dhismaha oo hadda aan ka xusi karo Mubarak inay hadda dhismaha qayb dhisayso oo shirkadihii dhismaha laftirkooda maxalliga ah ay guriyihii qayb dhisayaan inta badan dhisayaan mustaqbalkana qorshe u yahay inay inta badan iyagu ay dhisaan waxa dawladda runtii ka soo galay dakhli aad u ballaaran gaar ahaan canshuuraha maadaama warshaad badan la keenay qalab badan la keenay materiaalka wax lagu dhisay la keenay gaadiid la keenay dawladdana waxaan ku faraxsanahay inuu halka ka soo galay maaragtay dakhli badan oo dakhli abuur ay samaysay waxyaabaha kale oo mashruucu faa'iideeyay waxa kamid ah dhaqaalihii waddanka inuu wax ka qabtay oo iib badan gudaha laga sameeyo haday shidaal noqoto haday wax kala noqoto oo dhaqdhaqaaq iyo xarakaad u yeelay waxa sidoo kale mashruuca ka faa'iideysan doona magaaladii kale haday noqoto caruurtii iskuulada u baahnayd inay halkan iyagoo iskuulka ka qaadan ka heli karaan caafimaadka iyaguna ay ka heli karaan xaafadan oo kaliya looguma talagelin waxay yeelan doontaa xaafadu beero iyo wax soo saarkeeda u gaarka ah insha Allah sidana waa ka sii fidin doonaa waxa iyaduna jirtay wadada amal oo ka timaada magaalada Garowe oo xaafadan timaada oo wax badan isu fududeysay sida hadda gudoomiyuhu sheegayay waxaan rabaa inaad la soo dhaweysaan presentation ama soo jeedin ku saabsan xaafadan Amal Real Estate slogankeeda ama halkudhigeedu waxa weeye ku noolow dalkaaga oo la noolow dunida kale macnaheedu waxa weeyaan adigoo waddankaaga jooga bilicdii iyo quruxdii iyo wadooyinka fiicnaayo aad u ordaysay waddankaaga baad ka helaysaa isaga ku noolow waxa weeyaan dalalka kaleeto waa u egyahay waxaad la soo dhaweysaan madaxa qaybta real estate-ka Amal Real Estate Maxamed Faarax Maxamed Geedi oo presentation inoo soo jeedin doona السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بأمهات اسكاله مركه هراء رب سبحانه وتعالى مركه حكتا وحن سلام يا مدحوينها دولة بنتلان دكتور سعيد عبد الله الدني قلها وزير رضا ضمان مرتشرف تكاره مدحدا أمل جروب وجوه الرئيو قدومي أمل ريال استيت يا ضمان مرتشرف تكاره قيمها بدن وحمد الله أنها يكسر هذا أمل ريال استيت يحافظ عصر يا أمل فيلاج maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah maanta waxaanu halkan u fadhinaa xarig jarka xaafadda cusub ee ku soo korodhay Puntland runtii waxaan rabaa inaan warbixin yar oo kooban oo ku saabsan mashruucan iyo maraaxiishii uu soo maray iyo meesha uu ka bilowday iyo meesha hadda taagan yahay inaan idinka siiyo mudan madaxweyne sharaf ay noo tahay in aanu halkan maanta nala joogtid adiga iyo islaan ciisaba iyo dhammaan akhyaarta kale xaafadan Amal Real Estate saad uga jeedaan halkan waa master balankii xaafadda waxa uu ka kooban yahay dherer ahaan 3 kiiloomitir oo dherer ah iyo 2 kiiloomitir oo ballac ah runtii qayb baan u dhisaynaa hore u soco halkan mudan madaxweyne waa playgroundadii
iyo wadooyinka caadiga ah ee xaafaddu ee lagu lugayn lahaa ama baabuurta ay mari lahaayeen mashruucan waxa uu ka kooban yahay 4 fays saad uga jeedaan halkan waa masar balaankii xaafadda masar balaanka xaafadda wadadan dheer waxay ka soo gashaa laamiga ayay ka timaadaa dhismaha hadda joogno hadda waa dhismahan halkan waa iskoolkii internationalka ahaa waliba integrated ah oo islaamiga oo Somali culture-kii iyo dhaqankii Soomaaliyeed ku jiro curriculum-kiisu uu manhajkiisu Mareykan yahay halkan isagana waa clinic loogu talagalay xaafadda ama isbitaal ku filan xaafadda halkan waa qaybihii commercialka halkani waxa laga dhisi doonaa hoolkii shirarka maqaaxi casriya balaygaroonadii halkan waa guriyihii deegaanka halkan waa beertii nasnimada iyo dalxiiska oo haday aan ku lugaynay halkan wabi yar oo macmala oo river ah oo sameeyna way xaafaddu marka mashruucan muddada la qorsheeyay 7 sano ay ahayd laakiin hadda waxaan ku soo koobnay muddo 5 sano runtii marka 2025 haddii alla idmo fayskii ugu horeeyay xaafadda ayaa soo degi doona xaafadana waa laga soo kici doona iyadoo adeegyadeedu u dhameystiran yihiin mashruucan waxaan qorsheynay 1 guri inaanu xaafadan ka dhisno 1 guri waxay yeelan doonaan qaybihii commercialka oo ganacsiga oo supermarketyadii meelihii shoppingska laga dukaamaysanayay 3 masaajid 2 masaajid oo yaryar iyo masaajid jaamica oo weyn oo magaalada qaadi kara qaybihii restaurant-iyo cafeteria-da iskoolka internationalka ahaa waxay kala yeelan doontaa security 24 hours ah xaafadana waa xaafad community gated oo xiran oo package-yadkii oo dhan u dhameystiran yahay marka waxay kala yeelanaysaa sewer system-kii waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya xaafad noocaana sewer system loo sameeyo ama bulaacad caama oo casri ah oo runtii guryaha aad degaysaan wax bulaacad oo ka hoos qodan ma jiraan xaafadana waxay kala leedahay swimming pool-kii lagu dabaalanayay oo kala duwan waxay leedahay guri kasta laami baa hormara interlogis ayaa hor yaala runtii marka sanadkan 2024 waxaan dhisaynaa phase 1 phase 1 marka wuxuu ka kooban yahay saad u jeedaan waa halkan waa master balaankii ama maapkii xaafadda master balaankani marka wuxuu ka kooban yahay san hore ugu sheegay waa iskoolkii internationalka ahaa qaybihii commercialka ahaa laamiyadii hoolkii shirarka maqaaxidii iyo waliba jiimkii gurihii deegaanka ahaa beertii nasniinada iyo wadooyinka lagu lugaynayay iyo meelihii cagaarka ahaa ayay ka kooban tahay oo hadda waa intaan diyaarsan marka 337 guri ayaa phase 1 ku jira almost hadda 100 iyo xoogaa guri ayaa socda hawshooda runtii guriyaha aan dhisayno waxa asal u ah waxa la yiraahdo quality control ama quality assurance waa guriyaha tayadooda la hubiyay aad looga taxadiray inta badan intaanu guriga aanu dhisin waxaanu qaadnaa waxa la yiraahdo soil test ama ciidda loo hubiyo laabkii baan noo yaal laboratory-gi ilaa ciidda loo hubiyo meeshaani ma ku haboontahay guriga in laga dhiso mase kuma haboono guriga ma dhisno markaanu sahamino ka bacdi ciidda la baaro ayaan guriga bilowna guriyaha aanu wada dhisayno waa wada shub ama guri caadi oo gambis ha noqdo ama guri G+1 oo dabaq oo saaran ha noqdo materialka aan guriyaha ku dhisanana waa material tayadooda la hubiyay oo dalka dibadiisa laga keenay runtiina aad iyo aad looga taxadiray quality-gooda la soo baaray runtii qaybaha marka hadda diyaarka saad uga jeedaan maapka halkan waa iskoolkii ilaa 28 galaas ayuu ka kooban yahay meelihii playground-diisii iyo dhulkiisii oo dhan waa kan halkaani waxa weeye isaguna waa masaajidkii oo phase 1 ku jiray halkan waa qaybihii commercialka beertii aynu ku dhex lugeynayna waatan iyadana la cagaariyay runtii guryaha aan dhisayno noocyadu waa 2 nooc laakiin tirada waa 8 nooc oo kala duwan laakiin 2 jeed baan dhisaynaa guriyana waxa la yiraahdaa waa bungalow waa guryaha gambiska ee dhexdhiska ah oo guryahan hadda tagnay guriyana waa G+1 waa guryaha dabaqaya ee isa saaran marka labada jeed ayaan dhisaynaa hore soco runtii xaafadda marka guryuhu ay dhamaadaan muuqaalkoodu sidaan noqonaya banaankooduna sidaan noqonaya waa wall classic homes waa guryo casri ah interior design-kooda guduhuna sidaan ayuu noqonaya oo guriga qofku gogasha kaliya ayuu keensanaya qofkii rabana waa loogu daraya marka guriga decorkiisi leh oo diyaarsan oo qurux badan ayaa soo baxaya haddaan guryaha guda gala marka noocyada ay kala yihiin guriga ugu yar xaafadda aan ka dhisano waxa la yiraahdaa bungalow guriga cabirkiisu waa 15 by 15 buu ka kooban yahay 15 lagu dhuftay 15 inta dhisan waa 114 meter square waa 2 qol oo jiif ah qolkii master bedroom-ka suuligiisa gudaha ayuu ku leeyahay qolkii fadhiga iyo qadada usu furan jikadii store-kii 2 musqulood iyo karadoodkii waasaca iyo waliba jikadii iyo store-keedii iyo hal baakin iyo landscape-kii la cagaariyay ayuu ka kooban yahay guriga waa guriga ugu yar waxaan ugu talagalnay dadka xaafaddan degaya 90% target market ama target people-ka waxa noo ah dadka qurba joogta ee diaspora ee wadankooda ku soo guriya noqonaya inay helaan noloshii xagga ku haysan mid la mid ah marka oday iyo habar ciyaalkii ka koreen retirement-gooda qaadanaya gurigan waa ku filaya hore u soco
gurigan qiimihiisu pricekiisu waa $65,000 muuqaalkiisu saa u jeedaan korkiisa jilay baa saaran laami baa hormara interlogii baa hor yaalla tabtaas uu hadda u design gareysan yahay ayuu hadda u dhisan yahay waa inagii soo aragnay hore soco guriga xiga bungalow B baa la yiraahdaa cabirka kii hore waa ka badan yahay 15 by 20 weeye waa gurigeenu hadda soo daafurnay wuxuu ka kooban yahay 3 qol oo jiifa qolkii fadhiga iyo qadada landscape-ka la cagaariya laba baakin baa gali kara gurigaana waa 3 qol iyo fadhigiis way hore soco gurigaas waa saa u jeedaan qiimihiisu waa 78,000 deer weyn oo waasac ayuu leeyahay meeshii lagu qorxaysanay ee deerka ah ama galabtii lagu qaxweynay ayuu leeyahay 300 mitir square-na waa ku fadhiya dhul ahaan guriga xiga waa guri family ku filan oo waasac gurigaani wuxuu ka kooban yahay 5 qol waa qolkii fadhiga iyo 4 hurdo ah gurigaani marka waxyaalaha uu gaarka leeyahay waxa kamid ah deer weyn oo waasac u leeyahay cabirka uu ku fadhiyo waa 20 lagu dhuftay 400 mitir square weeye waa guri weyn oo waasac family ku filan wuxuu ka kooban yahay qolkii chiefka suuligii sida kaloosadkii meelihii dharka lagu bedelanayay qolkii fadhiga iyo qadada waasaca oo jikada albaab uga furan tahay laba baakin iyo ka badan baa gali kada iyaguna guriyaha diyaarka weeyo hadda oo diyaarsan gurigaas muuqaalkiisu sidaas uu noqonaya waxaad u moodaysaa qusuurtii carabtu degi jiray sidaas ayuu soo baxaya hore soco qiimihiisu waa 99,000 ama 100,000 guriga xiga bungalow D baa la kii hore uu la cabiriyay laakiin waxa lagu daray kii hore meeshu ahaa 4 qol oo jiifa kan waa 5 qol oo jiifa iyo qolkii utility room-ka ayuu dheeryahay ama qolkii laundry-ga ahaa ee dharka lagu dhaqanayay qiimihiisu waa 116,000 isaguna muuqaalkiisu sidaan ayuu soo baxaya guriga xiga bungalow E baa la yiraahdaa guriyaha bungalooyinka ama gambiska guriga ugu dameeyay ugu weyn weeye gurigan 20-30 buu ku fadhiyaa wuxuu leeyahay gurigan guriyada hore kaga duwan yahay cabirka dhulka waa kaga duwan yahay wuxuu kaloo leeyahay gurigii surface-ka ah buu leeyahay oo gaarka u dhisan oo ah qolkii maid room-ki ama gabadha shaqaalaha jikadii iyo wali musqushii iyo utility room-ki gaar bay u go'ayeen halkaana waa fadhi iyo chief iyo waliba jiko kale iyo qolalkii kale oo chiefka iyo qolkii martida oo isaguna suuligiisa gudaha ku leh marka waa guri weyn oo waasac hore u soco qiimihiisu $151,520 weeye 6 qol oo jiifa 4 musqulood 2 baakin iyo 600 mitir square ayuu ka kooban yahay halka waxaan uga baxayaa waa gurihii bangalooyinka gurihii G+1 oo 3 qaybood ka kooban ayaan guda galaya anoo koobaya gurigan waxa la yiraahdaa villa A ama waa G+1 waa dabaq qaybtan waa qaybta la yiraahdo qaybtii hoose waa ground floor-kii qaybtaasna waa qaybtii first floor-ka ama G-dii iyo balaaskii qaybtan hoose marka waxa ku yaala hal qol oo jiifa oo suuligiisa gudaha ku leh waxa loogu talagalay qofka waayeelka oo waalidka oo aan jarjarta kori karin ama qofka martida ay ku yimi qolkan suuliga inaad dejisid fadhigii iyo qadadii oo saaran halkan waxa ku jira jikadii qolkii laundry-ga ahaa iyo wali store-keedii halkan u yaal deer weyn oo waasac landscape-ka la cagaariyay jarjarta marka la soo koro qaybtan la yimaado gurigaas marka qiimihiisu isaguna waa 150,000 guriga xiga waxa la yiraahdaa villa B isaguna wuxuu ka kooban yahay sidaas oo kale 20 soddon cabir ahaan isaguna wuxuu ka kooban yahay 8 qol 6 qol oo jiifa iyo wuxuu ka kooban yahay iyo 2 qol oo fadhiya ayuu isaguna ka kooban yahay guriga ugu dameeya waan ugu talagalnay dadka siyaasiyiinta madaxda ganacsatada ismada dhaqanka waa guriga ugu weyn gurigaasi wuxuu ku fadhiyaa dhul ahaan 20-40 buu ku fadhiyaa wuxuu ka kooban yahay 3 dabaq oo saaran ilaa 9 qol ayuu dhan yahay 9 qol oo jiifa 8 musqulood baakina waaweyn buu leeyahay qolkii security-gu leeyahay landscape-kiisu waa la cagaariyay buu leeyahay runtii halka marka waxaan uga baxaya waa guriyaha qaab noocaya loo gadanaya haddaan guda galo payment plan-ku laba qaab noqonaya qaabka ugu horeeya waxaan u bixinay waa cash payment qofku inuu lacag gurigiisa uu ku gato marka ugu horeeya wuxuu bixinayaa 50% ama 50% oo down payment gurigiisa loo bilaabay heshiisku saxiixaya 4 bilood ka bacdi guriga qalfoofta markuu gaaro haddana qaybtii 30% buu bixinaya hani overka ama completion-ka guriga marka la dhameystirana 20% ayuu bixinaya qaybta kale oo aan ugu talagalnay maadaama adduunkii aan hadda ka war hayno oo financial crisis ama economical crisis xoog leh ay ka jiraan waxaan ugu talagalnay dadkii aysan cash wada haysan bangiga Amal oo uu nagala joogo gudoomiye ugaas oo mashruucana maal gelinayay inaanu dadka maal gelin u sameeyno oo muddo 6 sano ayaanu siinay qofkii guriga 130 buu bixinaya 70na bangiga ayaa u maal gelinaya 6 sano ayuu installment iska yareereynaya tartiib iskaga bixinaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin ku soo dhawaada xaafadda Amal Village assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa aynu sidoo kale haddana soo dhaweyn doonaa soo jeedin kale oo la xiriidha waxyaabaha cajiibka ah oo xaafadan ku jira ama aniga si gaar ah soo jiitay waxa kamid ah waxa la sii sahamiyay wax kasta oo ku saabsan
kaabayaasha ay u baahan tahay xaafadani hadday noqoto laamiyada iyo sida loo dhisayo hadday noqoto biyaha toga sida looga taxadarayo hadday noqoto meesha la marinayo biyo mareennada ciidda oo laga yaabo inay inagu cusub tahay in ciidda la tijaabiyo si looga fikiro mustaqbalka in guryahaas ama dildilaac ama wax ku yimaado soo jeedintan marka waxay ku saabsan tahay kaabayaasha ay haysato Amal Real Estate ama xaafadani waxaan soo dhaweynayaa injineerada kale ah injineer Xasan Muuse oo ah madaxa la talinta iyo diyaarinta mashaariicda Amal Real Estate sidoo kale waxaad ila soo dhaweysaan injineer Abubakar Maxamed oo ah madaxa shirkadaha dhismaha waxay noo soo jeedin doonaan soo jeedin ku saabsan kaabayaasha xaafadani ay leedahay soo dhawaada waxaan u socdaa oo kaliya inaan soo gudbiyo ama soo bandhigo halkan markaan ka hadlayno Amal waan garanay Amal Real Estate waan garanay Amal Group waan garanay Amal Village xaafadan Amal Village maxay tahay maxay ka kooban tahay xaafada Amal Village waxa hore loo sharxay oo la isdul istaagay inay guriga ka kooban tahay أنا أقول لكم إننا قري عن كشكايو لكن واحد سوي مدينا نشجعه أديك كل فاق عن قري إن عدسو محو يجب بهايه وحقوري يجب بهايه هاي أديك أنا لقى مر من مرنبا آية القرآن واحد جرت ترى هذا إلهي سبحانه وتعالى بيها وحو كدجاي شيء كستو نلا وحو كدجا نروش يسبيه سادرت المركا قفك بلاد إن كمركو قري هلو محو بهايه أنا هالكلام waxaan soo istaagnay aniga teamka injineeradu inaan idin sheegno baahida markaas Amal Village kliyantigu uu baahan yahay iyo qaabka ay Amal Village uga jawaabtay ay u haqabtirtay baahidiisa ay u tiri cinwaanka oranaya ku noolow dalkaaga la noolow dunida kale anoo taa ka guuraya waxaan rabaa inaan sheego Amal Village xaafadda Amal Village waa isku jir loogu talagalay inay ka jawaabto baahida qofka oo dhameystiran si haqabtiran si heer sare ah loo soo agaasimay marka hore waxa la isweydiiyay team engineer ah oo iskugu jira engineer ma aragtay international iyo national ba waxa loo fariistay qaabkii loo analyseyn lahaa ee loo ogaan lahaa horta Amal Village maxay u baahan tahay waxaan garanay guriga inay u baahan tahay waan dhignay halkan maxaan u baahannahay waxaan soo helay waxa dhado kaabayaasha dhismuhu marka maxay yihiin waxa la helay biyo inay u baahan tahay xaafadani koronto inay u baahan tahay wada inay u baahan tahay qofku u maro landscape oo ku inda doogsado inay u baahan tahay landscape ku inay u baahan yihiin system biyo guriga markuu soo galo qofku korontadii biyo helo muxuu u baahan yahay hadana su'aal baa timiday wuxuu u baahan yahay bulaacada wasakhda ku dhacdo bulaacadi maxay noqon doontaa qaybkee loo maarin doonaa waa la isweydiiyay Amal Village dhan kasta laga joogsaday xaafadan buuray ku dhex taala waxa la soo ogaaday kaajmantiyada ama meel biyo qabatinada biyuhu iskugu yimaadaan iyo imisa sano markii la joogaba markay gaadhaan halka ugu sareysa sidana loo maareynaya injineerada marka waxaan u iman halkan ka jawaabno sidaan u maareynayno sidaan biyaha uga jawaabayno macmil sidaan uga jawaabayno korontadaada sidaan uga jawaabayno laamigaaga iyo wadada maraysa wada qurux badan sidaan kaaga maareynayno biyaha roobka ee daaya sidaan ku siin lahayn xaafad qurux badan aad ku nasatid oo landscape ay indhaha ku doogsadaan aan ku siin lahayn sidaan ku siin lahayn power ama maxaa dhahday fiber optic ama maxaa dhahday internet ama baahida bilaadanka oo dhameystiran baahidii guri looga baahnaa oo dhameystiran inta waxaan ku darayaa xaafadan Amal Village waxay leedahay oo ka jawaabaysa adeegyada kale ee kala ah iskuulkii oo heer sare ah waxay ka jawaabaysaa sidoo kale clinic-gii waxay ka jawaabaysaa sidoo kale mall ama suuqii looga baahnaa halka waxay noqonaysaa maad aragtay xaafadaasi inay ka jawaabto kaabayaasha dhisme ee baahida bilaadanku ku salaysan tahay soo dhawaad injineer injineerka inta uu sheegay waxaan jireenaa technical waxaan inaan dareensiino in tusno shaqada baaxadda leh oo laga qabtay infrastructure markay soo baxday in xaafad la dhiso aysan ahayn guryo keliya ee la dhiso waxaa timid see looga howlgeli karaa waxaa bilaabatay daraasad socotay 6 bilood oo soo bilaabatay January waxaana ka bilaabnay inaan ku laabano xaafadda topographic survey-geeda dib loogu laabto oo maabkeeda xaafadda la toosiyo kadibna assessment lagu sameeyo baahida xaafadda ay u baahan tahay iyadoo la kaashanayo dawladaha hoose wasaaradaha la xiriira arrinkaas iyo injineerada kambanigu iyadoo la kaashanayo February waxaan soo gabagabeynay daraasadaasi waxyaalaha loo baahan yahay March
waxaan u baahanay cid naga xigsata oo expert ah oo shaqada nala qabata April waxaan go'aansanay company Kenya ah oo TCE la yiraahdo inuu mashruucaasi nala qabto oo mashruucaasi daraasadaasi uu nala dhameeyo daraasadaasi markuu maxay tahay injineerku soo sheegay waxa laga bilaabay feasibility study oo xaafadda dhameystiran ah waxa la sameeyay preliminary design oo xaafadda ah waxaan aad u dul istaagnay oo wasaaradda environmentiga iyo climate change-ga aan kala shaqeynay environmental and social impact assessment report-kii inaan keenno asagoo dhameystiran xaafaddu waxa loo sameeyay engineering design-kii oo ah storm water-kii sidii loo manage gareyn lahaa biyahan da'aya sidii looga faa'iideysan lahaa xaafaddu sidee u lahaan lahayd laamiyo iyo drainage nadiif ah iyo waxyaalihii facilitieska iyo serviceska xaafadda u baahnayd oo ay ka mid yihiin biyihii ay ka mid yihiin korontadii ay ka mid tahay security-gi oo CCTV camerada ay ka mid tahay fiber optic-gi kulli sidii looga faa'iideysan lahaa ayay daraasadu koobaysaa waxaan isdul taagaynaa marka daraasadaasi xabad waxa soo dhameystirmay waqtiga aad noogu kooban daraasadaasi iyadoo aan helnay final detail engineering design report-kii 5 November halkan waxaan doonay doonaa halkan aan ka sii doonaa aragtidooda baahidii aan ka hadalnay iyo waxa ku salaysan injineerku wuxuu ka hadlay walaalahay markaan injineernahay ama baahi aan ka hadlayna in la daboolo marka hore waa problemka la daboolo waa problemka ka imanay maxaa yeelay maxaa jira maxaa loo baahan yahay markaa waa maxaa loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay kadib ayaa waxaa meesha jawaabkii baahida marka laga jawaabay xaafadda waxaan iska garanay in loo baahan yahay marka hore waxa la yidhahda storm water aytimada hadda ku shaqaxan ee cabdixamed maadan kusan doonaa storm water ama storm drainage ama rainwater harvesting waa qaabka loo maareeyo biyaha roobka ka yimaada xaafadda kaamil kuley qaybta labaad waa laamiyo casriya waxaan rabaa inaan si kooban u dul maro xaafaddu waxay u baahantay san hore u sheegnay baahidan maaragtay baahiyowgan waxay u baahatay roobka oo laga manage gareeyo oo roobkii iskugu imanayay marka injineeradu fadhiisteen geological ay ka hadleen 20 sano soo dhaafnay iyo 100 sano xaafaddan garantigeega la qaaday amal village amal real estate ay qaadayso baahida ku salaysan roob ee imanaya ama biyaha imanaya inta in leeg bay iman doonaan ayaan ku salaynay waxa loo manage gareeyay oo loo sameeyay system marka caalamiya waa sababta aanu leenahay amal waxay ka jawaabaysaa tiknoolajiyad waxay kula socodsiinaysaa casriga maanta wixii ka jira qodobka labaad halkan waxaad ila arkaysaan xaafadii amal waxay leedahay labo biyo mareen oo meen ah halka iyo halkaasi waa biyo mareenno xaafaddan markaan sheegnay biyaha ka imanaya buuraha ama catchment-ga biyaha imanaya waxaan ku manage gareynay in biyaha loo sameeyo retention ponds wax la yiraahdo oo biyo qabatin loo sameeyo biyo qabatin taas oo loogu talagalay in future-ka laga faa'iideysto oo looga faa'iideeyo dadka looga faa'iideeyo beeraha looga faa'iideeyo halkan waxaad ka arkaysaan waa biyo qabatintii loogu talagalay xaafadda ee la rabo in biyuhu markaa ku qabtoomaan si ay markaa biyaha xawligooga u dhinto ay biyahaasi dhaawac xaafadda ugu keenin iyo qaabkan u manage gareynana markaa xagga dambe aan ku arki doonaa xaafadda labadan liin baa soo mara intan aad arkaysiina buluga waa biyo mareenada xaafadda markaa amal real estate waxay u manage garaysay qaab casri ah waxay koobtay 100 sano inta meter cube ee halkan mari doonta leynankan ayaa la sheegay waxaa la manage gareeyay oo la waliba si fiican loo maamulay biyahaasi qaabkay xaafadda uga bixi lahaayeen si nadiif ah halka dhibicda imika ku dhacday guriga iyadoo proper nadiif ah la dareemin loo heli lahaa xaafaddaas manage gareyntaasi halka ugu horreysay guriga ka soo galay xaafadda ka soo galayso halkan waa xaafadda bixigii xaafadda ka soo galkii ama xaafadda biyo halkay ka soo galayeen biyo qabatinadaas loo sameeyay halkan waxaad ka arkaysaan sidoo kale qaabkii loo sameeyay laamiyowga waxa inta badan dhacda ama ma aragtay ku dhacda xaafadaha markii la dhisayo
waxa la yiraahdo drainage-ka biyaha laamiyowga raaca ama guryaha ka soo baxa qaabkee loo manage gareeyay waxaad halkan ka arkaysaan halkani waa meel qarsoon horta waxaan ka sheekeynaya waxa weeye inaad ila fahantaan baa qurux badan hadduu ninkii igu horreeyay ka sheegay dhulka dushiisa anu dhulka hoostiisaan ka sheekeynaya waa laamiga wixii ka hoosay marka waxa weeye halkani waa halkii loogu talagalay biyo inay maraan laamiga halkani waa maalinta halkii loogu talagalay waad soo aragteen hal meel baan soo agmarnay oo maad aragtay biyo mareena biyo mareenka markaa qaabkii loo manage gareeyay loo maamulay gaadhigii iyo loogu ogolaaday qaabkani waa qaabkii isagana loo sameeyay biyo mareenkii oo dhammaystiran isagoo maad aragtay hareerahana protectionkii looga sameeyay oo laga ilaaliyay si xaafadda si nadiif ah uga baxaan biyuhuna ay dhibaato u keensan taasi markaa waa qaabkii aan u manage gareynay storm waterka ama biyaha xaafadda soo galaya waxaa labeeya wadooyinka xaafadda maraya waxay u qaybsan yihiin wadooyin main ah oo divided ah iyo kuwa secondary streets ah oo xaafadaha gudahooda maraya waxaa la isla qaatay in xaafadda amal kulli ay noqoto wada laamiyo waxaa kala xadidaya kaliya ballacooda waxay iskugu jiraan 12 mitir 14 mitir ilaa 16 mitir oo quality-goodana la rabo ilaa 20 sano in la secure gareeyo waxaa mudan sidoo injineerka sheegay xaafadda laamiyadeeda waxaa socda drainage-kii oo wadooyinka waaweyn double side drainage u yahay wadooyinka yar yarna one side drainage u yahay oo kulli ay yihiin closed drainage ay yihiin waxaan mar labaad ku laami doonaa baahida xaafadda oo maad aragtay marka hore asaasiyan u soo qaadanay tan waa biyihii xaafadda amal village xaafadda amal waxaan ogeysiinaa kliyantiga iyaga biyaha aan ku hayno waa treated water waa biyo la ilaaliyey la treat gareeyey caafimaadkooga la hubo lagu kalsoon yahay laboratory test la mariyey amal baa ka mas'uula bay ka dhigan tahay treated water qaabkani in yar waxaan isdul taagi doonaa kulli inkastoo waqtigu maad aragtay yar yahay xaafaddu inta ka kooban tahay waxa marka hore la soo saaray demand-ka waxa la yiraahdo baahida xaafaddu u baahan tahay imsa mitirkii bay u baahan tahay sidee bay uga baahan tahay qaabkee loo manage garanayaa treated water halkan waxaad ila arkaysaan halkaas calaamadda leh waa meeshii la dhigay maad aragtay haamaha xaafadda haamihii loogu talagalay iyo treatment-keegii oo isla socda sidoo kale phase 1 ayaa waxa loo base-keegu wuxuu yahay horta waa phase 1 waa phase-ka koowaad si ninkii nagu horeeyay sheegay waxaa jira sidoo kale wixii la odhan jiray fire hydrant oo maad aragtay xaafaddu damdamiska gaarka ayay leedahay oo isna biyaha kamid ah waad aragtaan sawirkiisa biyahaasi xaafaddu waxay u gaadhayaan si graffiti waxay ka baxayaan ceelka xaafaddu hadda waxay leedahay hal ceel labaad ba hadda la qodayaa oo diraasad waxaas ku salaysan yihiin ceelka labada ceeli waxay soo marinayaan water tankiyada ku dhacayaan water tankiga markay ku dhacaan way treat garoobayaan biyaha mashiinka treatment-ga marayaan kadib waxay korayaan storage loogu talagalay oo tanki ah storage tankigaasi wuxuu u kala qaybinayaa xaafadda oo distribution sameynaya waa laba distribution main iyo maxaan dhahday second labadaasi markaa xaafaddan ka heli doonaa sidoo kale waxaa noogu jira qayb biyaha ku haraysa oo loogu talagalay maad aragtay yadna irrigation-ka hadhow toole xagga dambe aan ku arki doonaa insha allah waxaan aad u jeclahay halkan in attention-ka si fiican la ii siiyo sewage drainage and treatment xaafadda amal waxyaalaha uniga ka dhigaya waxaa ka mid ah ana filayo Soomaaliya markii ugu horeysay inay tahay sewage system oo aanan lahayn local septic tankiska xaafadaha guryaha loo isticmaalo ayaa waxaan go'aansanay inaan ka takhalusno macnaheedu waxa weeye xaafadda amal waxay lahaanaysaa centralized sewage system gurina lahaan mayo septic tank u gooniya oo qofku hadda uu ku khasban yahay markii ka buuxsantaba inuu dib iskaga qaado waxay lahaanaysaa centralized sewage system waxa kale oo ayadana xusid mudan maadaama aan ku noolnahay meel aan u baahannahay biyaha inaan si fiican uga faa'iideysano sewage systemka biyaha ka dhalanayo waxay xaafadda uga faa'iideysanaysaa in dib loogu celiyo landscaping iyo dhirti waxay tusinaysaa marka teknoolojiyada la isticmaalayo oo la yiraahdo SBR technology oo lagu treat gareynayo biyahaasi dib loogu celinayo waxaan aad u jeclaan lahaa video yara oo haddii aan daari karno inaan idin tusno oo sida biyaha ay noqonayaan iyo stageska ay marayaan basically biyaha loo isticmaalayo suuliyaasha xaafadda dib intii loo aruuriyo ayaa waxaa la wada geynayaa centerkaasi centerka markii la geeyo iyadii baa la kala soocayaa coarse particleski baa laga saarayaa marka laga saaro kadib waxaa la iskugu geynayaa
hal meel ay ku wada aruuraan oo tankigaas weyn oo equalization tankiga baa la isugu geynaya halka markii biyihii la isugu geeyo waxa bilaabanaya kadib systemkii treatmentiga oo maraya 4 stage wuxuu marayaa 4 stage waxaan jeclaan lahaa dib inaad ugu soo laabataan videoga wax yar 4 stage buu marayaa 4 stage waxay kala yihiin in marka hore tankiga biyihii lagu soo buuxiyo ayagoo coarse particleski laga siibay kadib in lagu sameeyo aeration oo carbon dioxide laga saaro kadibna waxa la sameeyaa settling waa la fariisinayaa biyihii markii la fariisiyo oo wixii yararka oo ku sii harayna ay sii degaan ayaa waxa sameysmaya haddana in biyihii dib loo saaro oo dib loo sii isticmaalo marka waxay tusinaysaa xaafadani inaysan ahayn soo deg maaragtay ay tahay xaafad laga fakiray biyaheeda iyo waste managementgeeda sidoo kale xaafadda waxaad ugu imanaysaan sustainable landscaping ama ma aragtay meel indhuhu ku doogsadaan oo baarkis ah ay dadku fadhiistaan kuwan waxa la yiraahdaa waa landscape waa cagaarintu waxa weeye kulli waa hugay amal xiran tahay hadda amal village waa hugayga mid kamid ah waxa loo diyaariyay xaafadan system cusub saaka madaxweynuhu waa soo dhaxmaray halkan commentiga madaxweynuhuna waa ka dhiibtay oo wuxuu yidhi geedahan ma roob ku bixin mise biyo ku bixin waxa weeye waxaan jeclahay inaan idhaahdo biyaha laga soo saaray dhulka tankiga markay tagaan waxa lagu reebayaa qayb waxay leeyihiin store ay ugu dhacayaan biyaha injineerku sidoo sharxay sewage ka soo baxa saaladii iyo maxaadada qashinkii guriga ka yimid markii centralizer laga dhigo ee la sifeeyay ee biyihii wanaagsanaa ee soo haray labada biyood baa la isku darayaa waa tested waa waxa la mariyay testigeega waa la hubiyay waa diraaso sugan labada markii la isku daro waxa lagu waraabinayaa dhukan cagaarka lagu waraabinaya waxay noqon doontaa natiijadu sidaas oo kale loo waraabin doonaa tan waxay noo cadeynaysaa waa irrigationku marka waa qaab waraabintii waa qaabkii marka waa orahdii madaxweynaha waxa kaga jawaabayo biyahaas oo la isku daray markaas waxay leeyihiin biyaheenu inta badan waxaan nidhahnaa niyow waxa ku jirta ma aragtay maadooyin badan baa ku jira maadooyinka markii laga sifeeyo ayaan biyo caadi oo cabna ka dhigana laakiin iyadoo maadadii leh ayaa waxaan ku darnaa biyahan ka sifeynay qashinkii guriga ka soo baxay labadii biyood oo la isku daray biyaha qashin guriga ka soo baxay waxaan naqano nadiif 100% kadib markii biyaha kale lagu daro yaa waxaan isticmaali doonaa landscape-ka irrigation-ka waxaan idin tusi doonaa insha Allah taala idin tusi doonaa hadaan reemal iyadoo ma aragtay halka aan ka beerno dhirta maanta 100% ka qurux badan insha Allah taala soo dhawaada qaybtani waa qaybtii korontada waa muhiim baan filayaa waxa khasaba in la helo oo anaguna aan target gareynayna in la helo electric renewable energy labo in la helo affordable inay tahay saddex inay tahay secure saan marka taas u helno xaafadda waxaan assessment fiican lagu sameeyay baahida xaafadda guud marka la soo wada dago kunka guri ay u baahan tahay korontada iyo phase 1 intay u baahan tahay waxa soo baxday phase 1 2.4 megawatt in loo baahan yahay waxa marka electric system-ka amal ay qaadanayso waxa weeye in solar energy la isticmaalo solar system la isticmaalo iyadoo korontadii magaaladana laga dhigayo backup waxaan kaloo ku dadaalaynaa korontada xaafadda maraysa kulli inay noqoto underground aysan xaafaddu yeelan wax overheadisa iyo maaragta dhow riski keeni kara waxa kaloo iyadana saddexeeya xaafadda korontadeedaas 2.5 megawatt inay tahan sheegay in totalna waxay noqonaysaa hadhow 5.5 megawatt waxa kaloo ayadana mudan waa korontadii taas street lighting ka xaafadda waxaan isticmaalaynaa smart solar street lighting oo CCTV kameradiisa wata isaguna solar system ku shaqeynaya waxa kaloo iyadana inta raacsiisan dhammaan ICT workska information and communication technology-ga oo dhan oo ay ka mid yihiin fiber optic ay ka mid yihiin internetkii uu ka mid yahay korontadii wixii oo dhan inay marayaan dhulka hoostiisa saan sheegayba sidoo kale waxaan idin sheegayaa waxa jira wax la dhado solid waste guri kasta oo waxa ka soo baxa waan naqaanaa qashin adduunka markaa waa laga faa'iideeyay
qaabka markaa amal ay u manage garaynayso handuu lahadhad future-ka ee qorshaheegu yahay waa in intii la soo qaado la recycle gareeyo warshadii la mariyo anfac loo bedelo future-ka la isticmaalo xaafadda wixii lagu isticmaalo oo dhan ee qashin ahaan dibadda loo soo dhigo waa kan alaabtii lagu soo gurayay baagii lagu soo gurayay baabuurtii qaadaysay maashinkii la marinayay hadhow toole future-ka markaa waxaa qorshe ah handuu lahadhado amal inay recycle-ka u bedesho wax anfac loo dib looga faa'iido sida caalamka oo kale insha Allah ugu dambeyntii waqtiga una haya waan soo koobeynaa waxaan ugu dambeynsiinaa environmental and social management plan-ka xaafadda loogu talagalay xaafadda iyo project-yan Amal Village wasiirkuna waa fadhiya wuxuu ka mid yahay project-yada ugu horeeya oo haysta license-ga haysta environmental and social impact assessment report-kii in ay gudbisay oo xaafaddu ay haysato ay ka nabadgelayso wax walbo xaafadani ku noqon kara hadhow in ay dib ugu laabtaan ama dib u dhibaateeyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad in halkan ka xuso oon idhaahdo madaxweynaha hortiisa inaan ku idhaahdo madaxweyne waxaad haysataa xaafaddii Amal Village waxaad haysataa guriga xaafadda quruxda badan waxaad haysataa ganacsato ku garab joogta oo kule maad aragtay waxaan diyaar u nahay inaan dadka dib u soo celino waddankeena sidoo kale waxaan leeyahay waxaad haysataa dhalinyartii injineerada ahayd oo iyaguna ha qabtiray aqoontaas aan ka sheekaynay aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullah The President of the Puntland State of Somalia, Your Excellency Said Abdullahi Deni, the elders, the scholars, visitors from the diaspora, Puntland state officials, directors of the Amal Real Estate and Company, all protocols observed, ladies and gentlemen, good morning. My name is Engineer Patrick Simiyu Wambulwa from Tertiary Consulting Engineers. With me, I have Frederick Kangogo. I work with Tertiary Consulting Engineers too. Thank you. Your Excellency and distinguished guests, the joint venture of Tertiary Consulting Engineers and Prizeman Real Estate was invited to provide consulting services for preparation of the feasibility studies, preliminary design, detailed engineering design, environment and social impact assessment, and bidding documents for Phase 1 infrastructure works for Amal Village Real Estate Project in Garowe. It is a great honor for us to be invited to participate in this project. We started this work 6 months ago in May 2024, and today we are happy that we have handed over complete infrastructure design as has been explained in the last presentation. We have worked very well with the management and technical team of Amal Real Estate and Construction Company and under the able leadership of the General Manager, Mr. Bile Abdullahi Wasame. Equally supportive was the Ministry of Environment and Climate Change, which gave us guidance during the process of preparation of the Environment and Social Impact Assessment report for the infrastructure development works. I'm happy to report that this project has an environmental social impact assessment license issued by the Puntland State. We are willing and ready to continue with this collaboration during the implementation of the project and throughout the various upcoming phases. Your Excellency and distinguished guests, I would like to just highlight that within urban setting, infrastructure as proposed in this Amal Village helps to make life convenient and comfortable for residents, thereby improving their quality of life, which improves productivity and the economy of the community. In this regard, Amal Village, whose vision is New Garowe, will contribute to improving the economy of Garowe, Puntland State,
and indeed Somalia, not forgetting to mention the East African Community region, whose citizens are highly integrated and aspire for a common market as well as a currency at the earliest possible. We are therefore delighted to be part of this process and commit ourselves to continue to participate in supporting Amal and the Puntland state of Somalia. Thank you. waxaa ka mid ah fanaanadeen qaran hooyo qaran fanaanad hibo maxamed xuseen hibo nuura waxaan rabaa kelmad aad u kooban oo ay afka abwaanada iyo fanaaniinta iyo suugaanyahanada Soomaaliyeed ku hadlayso inaan siiyo ila soo dhaweeyo hibo nuura aniga waxa igu dambeysay garowe haddaan dibidin celiyo waqtigii burburka ka hor waxay ahayd 1988 garowe waxay ahayd wax yar laba aqal oo la dhex maro oon orod ku jiidhno orodna ku soo dhaafno 3 goor oo kala duwan maalimi markii ugu horreysay 2014 baan imi waan garan waayay magaaladii waan halkan matuuladii baa maya haddana mar labaad baan soo noqday 2018 wayba ka sii dartay waxay noqotay magaalooyinkii ugu waaweynaan qiinay haddana imankaan ku soo noqday 2024 mucjiso sidad waaweyn oo aan muqdisho ku arki jiray oo aan soo maray oo la yiraahdo jidka bartamaha magaalada oo jidka Sodonka la yiraahdo cajiib way ugu riday oo ku xasuusta markii dawladii hore ay jirtay haddana jidad kale oo badan oo tirada ka badan wasaaradda cajiib oo hadda cajiibayso dhismayaal caama waan yaabay waxaan islaahay mar afraadka timaado dee waxaan arki doonaa magaalada aan garanayn marka waxaan leeyahay adduunyada dharaartu ilaahay dharariyuu taagay badda weyn dhex dhigay wabiyadiyo buurihiyo geedahana dhaabay ee aadan loo dhiibay may kala dhantaalayne dhoomihii qarsoona gayiga kaydkii dhacdiiday een dhibaro loogala dhex baxo cidina dhaadaynin ilaah baa dhameeyo ka dhigay midaynu kala dhaxallo dharaarta aad nuguba dhabtii وحسب دهرين دقيقة كما يلعينه دهريجا يدارده هيو حريه يدورها هما بيها لقول دكتيو أو تلقول داشو رجيدول كذا بلايه دبتي دفت نوبري ساندولوا وبد كود عنا دعنت كجمرشي ما دمن دبلي دونوجي ما ذكت النوداليه دو حاجة ذا دمبل دبكسر دقي دبتوين كيسوم تانيو دبتي دبرجبكي قاري دلوا يبدأ كويل لغة تاريخ ذا دبيه الصومري نكرات كدوب دهن إن داركم مرين مارس في دمانينو بوحشو لرجوا كحارن لكن سمها تشاو بالله توفيق. أنا يرجع لجيسنجريو الوحوية سببية صحافة إن أبو صابر يوكل في بوجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها دولة بنتلاند مدن السعيد عبد الله الدني حبناها قولها وزارة odayaasha dhaqanka Suldaan Ciise ugu horeeyo Hibe Maxamed oo imika mikrofoonka iiga horeysay oo aan islaamar hadii iyada loo yeeray adiga laguma yeeriyo oo qoladayada dawr baahintii fanaaniintu shuraakaanu nahay isku group aanu nahay dhamaantiiba waan idin salaamayaa aniga garow waxay iiga horeysay 99kii marar hore way jirto ka horeysay oo aan dhex maray laakiin mar aan joogo oo maalmaan ku qaato
99kii baa iigu horreysay runtii muuqaalka magaaladu leedahay iyo wuxu dhow toona laba waxoo la isku masayn karo ma aha imika 5 bilood ka hor ayaan barnaamij ka sameeyay xaafadan Amal Village iyada qudheeda markaa waxa ka taagnaa 2-3 guri maantana boqol bay marayaan markii barnaamijkii aan ka sameeyay Amal Village oo baxay Abdi Fattaax oo saaxiibkii halka fadhiya oo Nairobi ka yimi intuu telefoon ii soo diray buu warniyo waxaanad ka sheekaynaysay horta marunba mise hoos weydii baan isiri buu yiri muuqaalkii oo rumaysan waayay dee saaxiibkay intuu indhihiisa imika wax ku arkay ayuu waliba gurina ka iibsaday qolyaha qurba joogta runtii waxyaabaha wadanka inta badan ka eriya waxa kamida guryihii aynu ku soo kornay inteena badani ee labada qol ahaa ee dadku isogolaa dadku baa isogolaaba la oran karaa ee 10 qof lagu seexan jiray maanta uma baahna dadku waxa yeesheen baahiyo kale oo de wax privacy la yiraahdo horta ugu horeeyo qolba qof yeesho oo qofku xitaa hadii gurigiisa la hormarmaro uu ku deeqo ninaanu saaxiibnay baa wadanka yimid oo bari dhexda ahayd markaas gurigii uu kureystay baan biyo lahayn baaldigii markii loo soo dhigay koombadii yareeyay la darsanayay ayuu gurigii intuu iskaga baxay hodheel degay subaxdii baan ku yiri war gurigaaga maxaa ku dhacay suuli wadanka bariga hore waxaan uga dhoofay wax kale ma ahayn koombada la isku shubayay marka de waxaan u maleynayaa qoliyii qurba joogtahay sida asxaabteeda Amal Group sheegaan guryaha badankooda iibsaday baahiyahoodii oo dhan guriyuhu ka jawaabayaan hiba nuurina de waxay u bixisay garoowe bela marka magacana de hal ka consider garay dhinaca kale hadaan kaftan yar ku daro de inantan barnaamijka inoo xidhiidhinaysay waa runteed iyada waan ka siisanayaa oo haday tiraahdo inteen ku dhageysanayay iyada waa ka ogolahay laakiin de oday farsamo ku socda marmar wax ku dhigay inteen ku dhageysanayay markaasaan aniga qudheedu naxayro waniyo ma museum piece baad noqoto waxaan dhahay balaadeer inta kale haynoo joogtay tanun ka reebado marka iyada igumay darintaa aad iyo aad baa mahadsantiin waa ku faraxsanahay inaan xafladeeda kala soo qayb galo de waxaan u maleynayaa kulankeedna dambe hadii Ilaahay yiraahdo Amal Village wuxuu noqon doonaa marka 1,000 iyo 100 guri isku dhamaadaan guul baan idin rajaynayaa dhamaantiin hay hantida wadanka Soomaaliya leeyahay dadka hantida ah dadka waxgalka wadanka ayaa kamida ay kamid yihiin Cabdisalaan iyo Hiba Nuuro iyo dadka la midka ah waxa aynu sameyn doonaa insha Allah taala hand over yar oo la xiriira hadaaye waxa la sameeyay inuu niri daraasad la xiriira kaabayaasha dhismahan uu leeyahay hay'ad baa sameysay consultantiya oo la yiraahdo TCE waxaan u yeerayaa markaas wakiilada hay'adaas aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa xafladda tan qiimaha badan horumarka intii soo agaasintay iyo intii soo ayidayba aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin isagoo haddana qof waliba meeshuu ka leeyahay ka qaadanaya haddaan intaa ka gudbo Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ha nimaan hore ruux ma dhaho shirkadda Amal oo horumarkan aynu maanta joogno waxna ka aragnay
waxna orohahaan inoo deeqsiisay u qabatay dalka oo ah naftaada ka qaad oo naftaada u qaad aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waqtiyaal badan ama meelo badan baanu xaflada kaga qayb galnay laakiin mid muggaan iyo miisaankan leh ama deegaanka intaa leeg ama hantida intaa leeg ama horumarka intaa leeg waa markii koobaad aad iyo aad baad u mahadsantihiin horumarkan aad dalka maanta u qabanaysaaniin ilaahna waxaan idinka baryaynaa intaad qabateenna allah idinku asturo inta idiin dhimanna allah idin fududeeyo intii aad geliseenna wax ka fiican oo ka khayroon allah idinku bedelo inta iibsatayna anfaca ay ka doonayaan in allah ka siiyo waxaan isleeyahay ku dayasho badan bay leedahay arrintan maanta gogoldhigeeda iyo xarig jirkeedu meeshan uu yaal dalka guud markii la yiraahdo diinta waxay dhigaysaa dadku wuxuu ka yimi ciidda waxaana lagu celinayaa ciidda dunyadu waxay ka timi ay ka timi ciidda waxaana lagu celinayaa ciidda marka waxaan oran karaa dadkan ama shirkaddan amal hantida ay keentay waxay ka keentay dalka waxayna ku celisay dalkii aad iyo aad baad u mahadsantihiin Soomaalidu waxay tiraahdaa soolis baa raagtay soo qaad ma raagto haddii hantida halakan la geliyay inta maanta diyaarka kaliya akoon lagu shubo oo bangi la dhigo oo subax walba xoogaa lala soo baxo saacado yar ama sanado yar ama bilo yar bay ku dhamaanaysaa laakiin deegaankan aynu maanta joogno ama kii la midihi waa wax wiilkii iyo taariikh dheer iyo qarni badan shaqaynaya oo shafeeciisa iyo miradhalkiisu soconayo sidaas marka loo yiri soolis baa raagtay soo qaad ma raagto waxaan leeyahay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta aad haysaaniin oo hadda noo sheegteenna allah idin fududeeyo in badan oo dhiman oo baahida dalka xusuusteeda iyo xoolaheedana allah idin siiyo sababta ay ku tahay qofku wuxuu ku amaanaa ama ku eedoobaa wuxuu aragti ahaan u leeyahay ama awood ahaan u leeyahay ama aqoon ahaan u leeyahay waxaan leeyahay marka wax kasto aad dalka iyo dadka u qaban kartaaniin ogaada waxbaad ka dheefaysaaniin wax idin dhibi mayso waxaan kaloo leeyahay yay ku koobnaan baahidu gobolkan ama caasimadda ee meel kasta oo aad wax ka qaban kartaaniin sandaqad ba Allah ka dhigay ha socoto horumarka dalka aad gelinaysaaniin oo ha cayimto dalka inta adeegiinu uu ka socdo shirkadaha kalena waxaan leeyahay tii wada waxaan iyo wixii la mid way ku mahadsan tahay laakiin maanta halkan waxa ka muuqda wixii la isaga dayan lahaa oo dayashadu waa xumo iyo samihii iyo horumarkii iyo dalka wax u qabadkiisii iyo wax ka quurkiisii waxaan doonaynaa marka odayga reerka u weyni waa iska xarunta wax kasta ku soo dhaca marka inaanu ka qayb galno shirkado la mid ah oo dalka horumarkan ayaguna ugu adeegaya ama amalo u gudubta faysas kale oo iyadana
annagoo nool haddii alla idmo aanu ka qayb qaadanno aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin taladeennana alabshir allaha ka dhigo idinkuna waxa aad higsanaysaaniin iyo horumarka aad higsanaysaaniin allaha idin gaarsiiyo dadkana waxaan leeyahay war dalkeenna waxaynu ka weynay dal kale ka heli mayno dalkeenna waxaynu ka weynay ama diinteenna ka weynay ama deegaankeenna ka weynay yaa dal kale ka heli mayno Soomaalida tiraahda dad iyo dameeraba nin lay u daaqayaan dalka aadan lahayn yaa hadda horumarkiisa iyo jiritaankiisa iyo nabadgelyadiisa midna wax kuma lihidin aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaa sharaf noo maanta inaan halka inaga ka soo qayb galno mashruuca lagu daahfurayo dhismaha magaalada Amal oo runtii ah sida halka laga sheegay magaalo si wanaagsan oo qurux badan loo qaabeeyay loona naqshadeeyay waxaan marka hore aad ugu faraxsanahay in halka lagu kala saxiixday oo ay buuxisay dhismahan daraasadii dhinaca bay'adda ah ama environmentiga oo muhiim u ah marxaladan cusub ee dalkeenu galayo iyo isbeddelka cimilada oo la arkay shidadeeda iyo dhibaha ay soo kordhisay waxaan rabaa halka inaan uga sheego mashaariicda furmi doonta ama bilaaban doonta ama dawladdu wado ama hay'aduhu wadaan ama ay ganacsatadu maraan inay maraan wadada lagu qiimeynayo dhinaca environmentiga iyo bay'ada wax la xiriira si dalkeenu mustaqbalkiisu uu noqdo mid nolol ay ka soo bato waxa horumarka uusan noo keenin dhibaato bulshadeenu ku habsata runtii halka wax badan kama furna waan ka mahad celinayaa Amal Group shaqada ay qabatay maaha maalgelin kaliya mashaariic badan baa la maalgeliyaa laakiin mashruuca kani waa mashruuc mar dalka bilaya mar dad naga maqnaa noo soo celinaya marna shaqo abuur iyo horumar abuuri kara waxaan ku faraxsanahay dhalinyaradii injineerada ah halka taagnaa ee shaqadan qaybta ka ah oo runtii inaan dhalinyaro aqoon leenahay waxba nama taraysa haddaysan helin mashaariic waaweyn ay ka shaqeeyaan oo aqoontooda iyo khibradooda kor u qaada marka waa wado hor leh oo furmaysa oo si casri ah oo cilmi ah in shaqooyinkeenu hadda kadib u socdaan waxay taasi sahlaysaa in mashruuc walba uu la kowsado qofka aqoonta gaarka u leh inuu fursad helo wax uu ka shaqeeyo sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa shirkadda inayan wixii iyada isku koobinay shirkadaha kale oo deegaanka ka jirana ay siisay fursado ay shaqada qayb uga noqdaan runtii marar badan hadalkii bilo waxa ku jirtay amniga iyo magaalada laakiin ogaada amniga xataa qayb waxa ka qaadanaya in rajada la soo celiyo ganacsatadu hadday dalka wax gelin naftarkeeda amni xumada qayb bay ka noqonaysaa dhalinyaradu haddaysan fursado shaqo helin hadday waxay ilaashadaan helin hadday qurux ay ku raaxaystaan helin de marka dambe waxay isu bedelayaan dad dayday ah ama jirri wixii la oran jiray marka amniga ka shaqayntiisu dadkoo dhan bay u taallaa khaasatan dhinaca horumarka dhaqaalaha qayb weyn bay ka qaadan doontaa in amnigeenu uu xasilo runtii gobollada Puntland ilaahay xamdigiis waa amni intiisa badan adduunka meel kastana de tira in ah oo dib wada mar walba way jirtaa laakiin waxaan ugu bishaareynayaa khaasatan magaalada Garowe iyo magaalooyinka waaweyn inay yihiin magaalooyin amnigooda la isku halayn karo noloshooduna waxa ka dhinaa waxay ahayd sida hadda Cabdisalaan sheegay dadka dibadaha ku noolaa noloshii xagga ay ku haysteen oo kale inay halku helaan hadday tahay tacliin hadday tahay caafimaad hadday tahay guryaha iyo qaabkii u noolaanayaan iyo hadday tahay meelaha ay u baahan yihiin inay ku caweeyaan iyada ruuxadeeda waxaan rabnaa inay ganacsada ku darto
in sidii la oran jiray in carruurta iyo haweenka intii la keeno la yiraahdo dibadda aan uga soo shaqaynaynaa taana lama rabo in shaqo abuur oo qoyska dhan intuu soo gaaro dhulka inuu ka shaqaystaa in laga fikiro maxaa yeelay haddii carruur iyo hooyo halka lagu soo sidaayo raggii intay tagaan dhahan waan soo shaqaynaynaa iyada naftirkeeda dhibo kale ka abuurmaayo oo bulsho marka waxaan u baahannahay bulshadeenna oo dhan rag iyo dumar iyo carruur wada socda inay noo yimaadaan oo kulligood qof walba wuxuu u baahanaa uu ka helo carruurtiina ay tacliin iyo caafimaad fiican hesho dadkii waaweynaana wax ay ka shaqaystaan iyo fursado kaleet inay helaan qorshaha dowladda Puntland waxaa ka mid ah in dalka loo daadajiyo howlaha waaweyn ee dadka noloshooda xasilin kara insha Allah taala waxaan rajaynayaa annagoo iswada kaashanay dowlad ahaan iyo private sector-ka iyo bulshada inteeda kaleetaba inay heli doono isbedel muuqda oo aan rajaynayno inuu wax weyn ka bedelo nolosheenna iyo mustaqbalka maanta halka hadal badan kama furna wixii aan soo aragnay baa noogu filan inaan ka sheekayno laakiin fariintayda waxa weeye dadka qurbaha jira iyo dadka gudaha joogaba fursadan magaaladan inay qayb ka ahaadaan kunguri oo waliba tijaabada koowaad ah oo ay ii sheegeen dhul fara badan ay haystaan ay fidi doonaan waxaan kaliya sidoo halka uu laga sheegay waxaan rajaynayaa in qorshe gaar ah loo sameeyo shaqaalaha dalka jooga qiimaha loo jabiyo waqtigana loo dheereeyo si ay naftirkooda qayb uga noqdaan dadka halka deegaanka ka mid noqonaya waxaan kaloo rajaynayaa haddii Ilaahay idmo qorshayaashiina inaad ku hareer martaan ku dartaan fursado shaqo lacagaha dalka laga helay oo dadku ay leeyihiin oo bangiyada yaala sida adduunyada kale ay u isticmaasho in loo isticmaalo oo dalka dib loogu celiyo fursadaha shaqo la abuuro ganacsiga la abuuro waxaan rajaynaynaa dadkeennu hadda way barteen bangiga iyo la macaamilkiisa waxaan u malaynayaa waagii hore baqdinta badnaan jirtay laakiin hadda waxaan rajaynayaa lacagaha la qaato dadku waa iska bixiyaan laakiin dadku waxay ka cabanayaan lacagaha waqtiguna waa kooban yahay waxa saaranna waa badan yihiin marka taana dib ha loo fiiriyo si fursadda u badato oo dadku ay uga faa'iideystaan annaga waxayna dhiirigelinaysaa inaan dib u eegno inaan qorshayaasha qayb inagala qaadano haddii Ilaahay idmo waxaan qabsan doonaa fursado ku saabsan bangiyada iyo shirkadaha maalgelinta sameeya waxaan rajaynayaa bangiga dawladda iyo wasaaradda maaliyadda inay bridge u noqon doonaan isku xirka dadkaas oo wixii caqabado jira xataa qayb in la qaadano wixii damaanad u baahan aan qaybteena ka qaadano khaasatan dadka dawladda u shaqeeya iyo dhalinyarada shaqo abuurka u baahan waxa lagu bixinayo naftirkooda inay noqdaan wax soo saar leh waxa aad fursadaha hore siisaan waxa anfac leh hadda waxaan u malaynayaa lacagta u badan oo la qaato qof aan shaqayn baa markuu saa u soo kaca wuxuu rabaa baabuur in la gataa u badan baabuurta tirada badan waxa ka haboon dadka shaqaysanaya oo wax soo saarka wax ku kordhinaya oo dhaqaalaha qayb ka noqonaya runtii dal sidaan oo kale taa inay gaadiidkiisu aad u bataan waxay muujinaysaa qorshe xumo marka waxaan u baahannahay dhaqaalaheena naftirkiina inaan u qoyaabayno qaab isku dheelitiran oo dadka iyo dalka wax taraya aqoonyahanka faraha badan ee dalka ku soo noqonaya fursadaha abuurteen waa ku mahadsantihiin waxaan halka uga boorinayaa dadka guud ahaan in mashruucan qayb laga qaato la dhiirigeliyo guryaha la gato كل عبد السلام هذا هالك نجوجو نوشة وقتي لكن هو كلا هالك جوجنا وحنا رجينا يعني قريها قتان سيدا صدق هذا بقوله هذا الشيء شن بقوله نقطة كدي من قريه هو بطان مركوان رجينا يا إن استديا كلا نوع عسنا أبو رمان أنا جنا مسؤولية وين بان إن شاء الله كقادن دونا مجال دان وان كوضا شقين دونا حق عافيماتك حق وحبر الشدا حق أمنية يو maaragtay stationka booliiska iyo wixii laga dhisay dhan waxyaabaha dawladda khusay oo dhan si dhow baan insha Allah in la shaqeyn doonaa waan dhiirigelinaynaa insha Allah kuwan iyo kuwa kale oo magaalooyin kale ka abuurmaayo intaba waan dhiirigelinaynaa aad baad u mahadsantihiin shaqada wanaagsan aad qabateen waan ku mudantihiin intaas ayaan aan ku soo koobi lahaa mar labaad waa inta ka soo qayb gashay iyo idinkaba waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaah